Soomaaliya ayaan hore ugu soconaya tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa waxa la gaaray ciyaartii kama dambaysta ahayd oo ay wada ciyaari doonaan arbacada gobolka Banaadir ayaa hadaba maanta 3-1 kaga adkaaday Koonfur Galbeed halka Galmudugna ay kaga adkaatay 2-1 Puntland labada gool ee Galmudug waxa dhaliyay Maxamed Maxamuud Axmed oo loo yaqaano Sakhraawi waxa uu ku dhashay magaalada Boosaaso arintaas oo baraha bulshada qabsatay ayaanu waxaan la hadalay Sakhraawi bal iyo socdaalkiisa kubadda magacaygu horta markuu waa Maxamed Maxamuud Axmed kuna magac dheer Sakhraawi runaantii anigu waxa ku dhashay gobolka Puntland waxaan ku soo barbaaray magaalada Boosaaso kubaddeeda cagtana iyadan ilaa iyo maxay ahaydey yaraanteed ilaa iyo hadeer heerkan aan joogo iyadan ku soo dheelay booskana hadeer joogana waxaan matalaya xulka Galmudug de meel la yiri yaa tahay niyo adiga halkaas u dhalatay ma ahayn waa meel micnihii kubaddeeda la arkay oo kadibna micnihii koobka degmooyinka markaa dheelay macalin Aftaax aad iyo aad halka ugu salaamaya taatiko ba kubaddeeda runaantii aad iyo aad isoo aan aqoon buu arkay dadkana runaantii micnihii markii meel lagu geenayo micnihii waa lagu fiirinaya waxa tahay iyo micnihii qaabkaaga kubaddeeda markii uu arkay degmooyinku ii qaatay degmooyinka dheelay sideed dhamaadkii baa ku soo harnay degmada Hoodan saasay tahayna de macalin Axmed hal uu daawanayay ciyaarihii degmooyinka saasana ku soo galay xulka Galmudug inaan matalaan wallahi horta runaantii waa jiraan dad micnihii social media la wareegaya Sakhraawi waa yaryahay baa la yiri maxay ahaydey waa laga soo tagay aniga runaantii horta wax Puntland na dhexmar oo wada hadal ma jirto sababtoo aniga de marka Boosaaso joogayna kubaddeeda waa arki jiray ciyaaro professional waa dhalay ee ka mid yihiin oo kale koob gaalkacay laga furay koob qardho laga furay oo kale dadka xiriirkaana badanaa way daawanayeen oo Puntland u qaabilsan isma lahayn micnihii de run ahaantii adiga ahaan waa laga tagayaa oo markasta hamigayga waxa ku jiray sanadka xulka Puntland waa matalaysa laakiin se ma ay dhicin oo maxay ahaydey de nasiib uma aana yeelan inaan Puntland matalo saasay tahayna waxa nasiib u yeeshay inaan Galmudug matalo aad baan ugu faraxsanahay Galmudug taa hadir joogo insha Allah qof walba oo ila soo hadlo wuxuu leeyahay hambalyo aad baan ugu faraxsanahay micnihii horumarka gaartay dadkii ka tagay oo kale oo aad ka hortimi oo aad isku bartay lugtaada run ahaantii de anigana wax niyadeeda ku jira ma ahayn run ahaantii horta Puntland isbar laakiinse waxay hamigay koowaad u ahaa inaan maamul goboleedkay ka horta aan guul la gaaro finaalna aan la tago koobkana aan la qaado aad iyo aad aan ugu faraxsanahay hadeer finaal baa joognaa insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan koobka qaadno markii ay kubaddu tahay in adiga aad dheelaysid oo kale oo meesha ka soo jeedid aad la dheelaysid de goorta shaqo unba adiga meesha ku taala taageernimo maahan anigana waajibaadkayga gudanaya baa leeyahay taageerayaasheeda ninna de shaqadiisa maxay ahaydey laguma naco waxa leeyahay micnihii aniga waajibaad isaarnaaba gudanayay maadaama idinkana aad rabteen inaad badisaan anigana waxa u socday hadafkaygu wuxuu ahaa inaan guuleysto marka labada hadaf uunba isdiidanaa marka raalli ahaadaan wallahi horta mustaqbalkayga waxaa jeclahay horta mar uun inaa calaamadda aan xirto fanaanada qaranka Soomaaliya oo aan qaranka matalo insha Allah rajadeeda ugu weyn waa taas waa tahay Sakhraawi iyo Banaadirna bal waynu soo eegi doonaa arbacada soo socota intaas ayaan ku soo gabagabeynaa caawiya caalamka nabadgelyo